madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jaray wadada Maxamuud Xarbiye oo dhex marta degmada Warta Nabadda iyo wada cusub oo lagu magac daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo iyana laga dhisay degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. Dadka Soomaaliyeed ee degan degmooyinkaas oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ayaa labadani wado ku dhistay si isxilqaan ah. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ka soo kabanaysa burburkii gaaray dalka oo lagu soo jiray muddo 30 sano ka badan ayaa waxaa hadda ka soconaya mashaariic iska wax u qabso ah oo dadku ay ku dhisanayaan kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaadiyay maamulka gobolka Banaadir iyo dadka deegaanka isku tashiga ay muujiyeen taasi oo ka turjumaysa wadajirka iyo wax wada qabsiga shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dadweynaha degmada Cabdulcasiis oo ayagu isxilqaamay oo markii ay waxa la yiraahdaa Soomaalidu ku maamaadacay ayaa loo ciladaanshaay markii ay bilaabeen in ay ayagu wax ay leeyihiin isku soo biirsadaan kadib in maxaan ku yiraahdaa gobolka Banaadir iyo dawladda iyo intii kale ka qayb qaadan kartana ay ka qayb qaadatay arin aad iyo aad u weyn waaye waa bogaadinaynaa waana amaanaynaa dadweynaha reer Cabdicasiis. gudoomiyaha gobolka guud ahaan gobolka Banaadir asaguna sidoo kale dadaalkiisa dib u dhiska dalka ah gudoomiye Madaale safarkii hore uu joogana waa la ogaa wixii magaalada uu ka qabtay haddana meeshii meel ka dheer uu ku socdaa. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay isku tiirsanaadaan oo ayagu ay wax qabsadaan oo xoogooda iyo xoolooda maanta jidkan daarahan quruxda badan ee dhinacyaha ka jiro dhan macno u yeelay awal daara macnala iyo guriye macnala ma ahayn laakiin maanta macno iyo qurux iyo haybad ay leeyihiin. madaxweynaha ayaa maamulada degmooyinka dalka kula dardaarmay inay qaataan doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalka iyaga oo kaashanaya dadkooda intooda waxaysata. degmooyinka kale ee Muqdisho iyo dalka daafihiisa ku yaalo dhan sidaas ha ogaadeeno markaad adiga wax qabsato ayaa wax lagu qaban karaa laakiin adigoo gurigaaga iska jiifo waxba laguma qaban karo. dadka waxaysta ee ganacsatada ah iyo dadka alla wax siiyana sidoo kale in ay wax dhisaan oo dalka ay dhisaan inay sidaan u qurux badan tahay ha arkeen shalay sawirka meesha ku yaalo oo dhiiqada iyo biyaha iyo qashinka oo deganaa wadada dhexdeeda iyo maanta meesha aan dhex taaganahay labay kala yihiin. waxa kale oo aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay magaca wadada loo bixiyay Allah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed. waan jeclaan lahayn xaflado badan oo sidaana oo qurux badan iyo horumar badan oo dalkii gaaray in uu nala arko madaxweyne Cali Mahdi laakiin allihiisi jeclaa ayaa xaqiisa u waday. waxaan leenahay naxariistii jannana Allah siiyo dadkeena. waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta oo maalmaha kamida dadka iyo dalka wax u qabatay intay doonaan hala ekaatee muxuu ahay waa la xusi doonaa haddii alla yiraahdo. Soomaaliya waxaa si xawli ah uga soconaya mashaariic dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeeyaan wadooyinka, goobaha caafimaadka, kuwa waxbarashada, garoomada, guryaha iyo xarumaha dawladda maadaama wax kasta ay burbureen waayihii qaranjabka. Liibaan Nuur Lowcad raadiyaha iyo telefishinka qaranka Jabuuti, Muqdisho.